Hello. Wala waaniga gaariga soo saaran jidka ku soo jiraade. Ya. Ma in yar sug dawaaka wadada yar jaama gaaraan saaranayo. Haygo. To diinteenu beenta iyo ballandarrada la inaga xaraam yeelay. Haddana waxaan ka habsaamay ballan aan la lahaa mid ka mid ah saaxiibaday oo aan rabay inaan kala qayb galo xafladda meherka walaalkii. Waxaan u sheegay inaan soo socdo oo jidka ku soo jiro anigoo quraacanaya. Tigirka la keenay ee xafladda meherka waxa ku qoran 9 subaxnimo oo Gowa. Balse waxay xafladda meherku si toos ah u bilaamaysaa 1 saac kadib xilligii ballanta. Soomaalidu waxay safafka hore kaga jiraan dadka beenta iyo ballandarrada aadka ula saaxiibka ah. Aaladda moobilada ayaa aad looga isticmaalo Soomaalida dhexdeeda, taasoo la oran karo waxay qayb weyn ka qaadataa beenta iyo ballandarrada. Haddaba maxaa keena in beenta iyo ballandarradu ay Soomaalida si weyn ugu sii fidaan maadaama diinteenu inaga xaraam yeeshay? Moodaaba inay casri noqotay oo waxa xalaaleeyay telefoonka oo adigoo qof la ballansanaa oo ku leeyahay suuqan jooga ayaad hotelkii markaad ku dhawaad gasho aad ugu dhex tagaysaa qofkii oo jooga isna wuxuu ku lahaa suuqan jooga marka beentii waxa xalaaleeyay baan leeyahay telefoonkan casriga ee imika la sito marka maadaama ay xagga islaamka tahay beentu xaraan si xaraan ay tahay oo haddana ay xalaaleysteen dadka bini'aadanku marka waxa si casriyay telefoonka gacanta marka beentu waa shay xaraan ah waxaan leeyahay qofka bini'aadankii waa inuu iska ilaaliyaa beenta iyo Soomaalida sanadadii ugu dambeeyay ruuxantii beentu aad bay u farabadatay taasoo dadkeenu caado ka dhigteenba inay maalin kasta been sheegaan waxa dadka tusaale ahaan 90% qof aan been sheegayn ma jiro taasoo ay beentu noqotay saaxiibka koowaad ee bulshada oo dadkeenu u arkayba dhibaato weyn oo ay beentu leedahay tusaale ahaan maanta qof aad la ballansaado aan isku imanaba qofkii aad la ballansanayd waxa uu sameeyaa in waxa weeye ballantii uu wajibiyo oo dantiisa u raaco marka interest-kii iyo beentii ayaa laba isku lama noqday sida daraadeed bulshadeena Soomaalida ama Somalilandba beentu aad bariyahan u dambeeyay ugu soo badatay taasoo aan oran karo qofka aan been sheegin in naftiisa wax ka maqan yihiin buu dareemi karaa waayo soo beentii dadkii waxa weeye la saaxiib noqdeen oo qof kasta leba ku maanta iyo bariye sahan daba been sheegaba wuxuu noqonayaa qof hadii uu been sheeg bulshadiisa u sheeg waayo naftiisa wax ka maqan yihiin marka waxaan oran karaa waa saaxiibka bulshada ee Somaliland baasha beenta la yiraahdo niyo beentaasi muddooyinka u dambeysay way soo badatay oo sababtoo ah baalka telefoonka la yiraahdo iyo intay inoo yimaadeen gaadiidkan wadooyinka jaamka ay noqonayaan qofkii isagoo meel fog soo maray ku oranayaa waxaan joogaa area ku dhow oo agtaada ah sababtoo ah waxa kalifaya jaamkan uu soo marayo iyo telefoonkii oo qofkii aan arkayn image ahaan markaas waxaan soo oran karaa telefoonkan badan ee soo kordhay iyo image ahaan kolka wadooyinkeeni oo aad u kooban ay gaadiidkii jaam badan galayaan taas ayaa sabab ahayaan maleeya kulay beento inay xaraan tahay wala wada ogsoon yahay waxyaabaha sababaya waxa weeye jaamkaas iyo telefoonka badan ee hadda aan isticmaalo insha Allah taas baan ku soo koobay rayahantahay waa intaas weey Cabdullaahi Yusuf Cabdi Abdullaahi Duulaaye telefishinka caalamiga Iftiin Hargeysa